الله الرحمن الرحيم halkan waa nuxurka hadii aad ku cusub tahay ku soo biiro kamid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada ku xiran halkan wararka warbixinada dhacdooyinka ka qaata haduu alweyne uu qadaro waxyaabaha aan idin soo gudbin doono barnaamij wareedkana aad ku daawan doontaan waxa kamid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal madaxda maamulada dowlad goboleedyada dalka ayaa Muqdisho ku soo qulqulaya hal arin ayay u imaanayaan arintaasi maxay tahay warbixin ayaan ku eegi doonaa barnaamij wareedkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isku furay degmooyinka Bay iyo Bakool waxaan idin soo gudbin doonaa degmooyinkaasi Bay iyo Bakool dhaca oo muddo markaasi go'doonsanaa ay fureen warbixin ayaan ku bidaamin doonaa barnaamij wareedkan ayaad ku daawan doontaan Daahir Maxamuud Geelle maxkamadda dastuuriga ah waxay soo afjaraysaa khilaafka hay'adaha dawladda ka dhaca waxaan soo gudbin doonaa khilaafkaasi iyo sida maxkamadda ay uga qayb qaadan karto Daahir Geelle bidaamin doono fursad iyo cawaaqib isku gadaaman doorashada 15 May warbixin ayaan ku bidaamin doonaa qodobada ayaan jeexi doonaa halkan idinku soo gudbin doonaa anagoo falanqayn ku sameyn doonaa hadii aad ku cusub tahay daawade kamid noqo ku biir sidoo kale la gareeshir garay aragtadii waxay kula tahay ka dhiib adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka warbixinada dhacdooyinka aynu halkan ku baahino soo dhawaada daawade madaxda maamulada ayaa Muqdisho hal arin ugu soo qulqulaya waxay madaxda maamulada doonayaan inay u oolayaan musharaxiinta ay siyaasad wadaag yihiin iyo kuwa ay doonayaan in mustaqbalka markaasi jagooyin ay ka helaan wax maalmihii la soo dhaafay Muqdisho ku soo qulqulayay madaxda maamulada xilli dalka 15 bishan la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay qabsoonto ama ay dhacdo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Galmudug Puntland ayaa yimi caasimadda waxaan ugu dambeeyay Cali Guudlaabe Xuseen madaxweynaha Hirshabelle oo lagu soo dhaweeyay maanta garoonka diyaaradaha Muqdisho halkaasi oo saf dheer markaasi loo galay soo dhaweyntiisa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland iyo Galmudug Maxamuud Sayid Aadan iyo Cali Ciid ayaa Muqdisho sidoo kale soo gaaray iyagoo u socda ujeedada doorashada ku saabsan madaxda maamulada ayaa u oleynaya musharaxiinta ay wataan oo ay u qalqaalinayaan xildhibaanada deegaanadooda laga soo doortay si ay codka u siiyaan doorashada May 15keeda Leftegren oo soo saaray xildhibaano 77 gaaraya ayaa aad uga oleynaya dib u doorashada Farmaajo oo uu daacad u yahay maadaama uu kursiga ku fariisiyay December 2018 doorashada sanadkan way ka duwan tahay kuwii hore maadaama ay ku tartamayaan in ka badan 20 musharax oo ay ku jiraan Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed Farmaajo iyo Xasan Cali Qeerre si kastoo xaaladda noqotaba socdaalkan ayaa waxa uu markaasi ahaa mid si weyn iyana loogu hadal hayo guud ahaan dhanka iyo baraha bulshada iyo warbaahinta guud ee markaasi Soomaaliya si kasta oo ay xaaladda noqoto daawade saaxiib siyaasiyiintan markaasi madax goboleedyada ah ayaa u oleynaya inay soo saaraan xubnaha ay wataan ee doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay u oleynayaan waxaanu eegi doonaa xogo iyo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman oo aanu sidoo kale barnaamijyadeena iyo xogaha soo aadan aan ku falanqeyn doono iyo musharax walba cidda uu geesood fadhi u yahay ama uu dhisayo ciidanka xoogga dalka ayaa isku furay degmooyin Bay iyo Bakool dhaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 6aad oo kaashanaya kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saacadii ugu dambeeyay waxay howlgallo ka sameeyeen gobolada Bay iyo Bakool howlgalka ayaa waxa qorshihiisu ahaa isku furista deegaano muddo u go'doonsanaa xoogagga Al-Shabaab oo ku sugan qaybo ka mid ah labadaas gobol ciidamada ayaa qaaday howlgalkan iyagoo isku furay wadooyin xiriiriya degmooyinka Tieglow Waajid Qansax Dheere waxaana hogaaminayay taliyaha ururka 45aad guutadiisa 8aad qaybta 6aad ee xoogga dalka Maxamed Nuur Gurey kadib huwanta ay markaasi ku guuleysatay isku furista wadooyinka xiriiriya degmooyinka ciidamadan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in wadooyinka la furay iyo markaasi aagooda laga saaray xoogag ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa degmada Waajid oo ku markaasi tirsan Bakool
ayaa dhowr jeer waxaa dhacay in al-shabaab ay ku gubeen gaadiid waday raashin oo ay la socdeen ama markaasi la hayeen ganacsato Soomaaliyeed kuna sii jeeday magaalada Xudur oo ah gobol markaasi xarun u ah. Howlgalkan ayaa waxa uu markaasi ku soo aadayaa iyadoo dhawaan magaalada Xudur uu gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka General Waa Yuusuf Raage, waxaana ciidanka xoogga iyo ADMIS ugu markaasi baaqay in laga qaado howlgallo lagu furayo deegaanada muddooyinka u go'doonsanaa xoogagga al-shabaab ee dhaca gobollada Bay iyo Bakool. Si kasta oo ay xaaladdu noqoto, daawade saaxiib, Daahir Maxamuud Geelle waa musharax u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga ah iyo waxay markaasi soo fariisinaysaa ayuu yidhi ama markaasi soo afjaraysaa khilaafka hay-adaha dowladda ka dhexdhaca. Musharax madaxweynaha Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya inay ka go'an tahay dhismaha maxkamadda dastuuriga ah oo ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee ay ku taagan tahay dowladnimada. Waxa uu sheegay in maxkamadda dastuuriga ah ay soo afjari doonto khilaafka soo jireenka ahaa ee inta badan ka dhex dhaca madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo inta badan awoodda isku qabsada. Waxa uu xusay in madaxweynaha dastuuriga ah uu ku dhisi doono si waafaqsan sharciga dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana uu kala tashan doono hay-adaha kale ay markaasi dowladda ay qosayso. Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa xildhibaanada golaha shacabka ka codsaday inay siiyaan codkooda si uu u rumeeyo rajada dadka Soomaaliyeed ay markaasi ku qotaman in madaxweyne la soo doorto. Daahir Maxamuud Geelle oo ka mid ah rugcadayaasha siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa horay u soo noqday 2 jeer wasiir, xildhibaan iyo safiir dalkaas dalal dhowr ah, waxaana uu hadda ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad ee markaasi xilka madaxweynaha Soomaaliya markaa qaban karta. Halkan waa nuxurka wararka daawade. Haddii aad ku cusub tahay nagu soo biirow la wadaag saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahino. Fursad iyo cawaaqib isku gadaaman doorashada 15 May. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ka dalbatay hay'adda lacagta adduunka ee IMF inay dib ugu dhigto muddo 3 bilood ah qiimeynta dib u habeynta barnaamijkeeda dhaqaalaha ee dalka uu taakulada kaga helo deeq-bixiyaasha. 17 bishan May oo ku beegan 2 cisho kadib doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dhacaysa 15 bishan ayaa loo mudeeyay ama markaas loo mudeysnaa in IMF ay bilowdo qiimeynteeda dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya. Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo Gudoomiyaha Bankiga Dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa warqad codsi ah oo si wadajir ah ay markaas u saxiixeen waxay u direen IMF oo ah hay'adda lacagta adduunka. Warqadaasi oo markaasi aanu aragnay ayaa waxay dowladda Soomaaliya ku cadeysay inaysan awoodin in muddadaasi kooban ay isku qayb gasho dib u eegista barnaamijka dib u habeynta ee IMF 17 May 17keedii. Gaabis 100 milyan ayaa markaasi jira bil kasta dakhliga ay maamusho dowladda Soomaaliya. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay xoojinayeen taageeradii miisaaniyadeed oo ay siin jireen Soomaaliya kadib markii uu dib u dhacayo badan uu markaasi keenay ama wajahday doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. dib u dhacyadaasi aawadeed deeqaha taageeradaas miisaaniyadda siiya 2021 waxay ahaayeen oo kaliya 38 milyan halka la barbar dhigo 170 milyan oo la filayay miisaaniyaddan lagu daro. Halkan waa nuxurka wararka. Haddii aad ku cusub tahay nagu soo biir adigoo la wadaagaya saaxiibadaada xogaha warbixinada iyo dhacdooyinka aynu halkan ku baahiyo. haddii alwin raalow ka noqdo waxyaabaha iyo kuwa kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamij wareedkan daawade.
haddaad ku cusubtaan ugu soo biro ka mid noqo daawadaashii saaxiibada ku xiran nabadgelyo.